kadib kulamo wada tashiyo oo maalmihii dambe magaalada Tanigarow ee caasimadda Puntland uga soconayay qaar ka mid ah murashaxiinta Puntland waxay maanta si rasmi ah u soo saareen war saxaafadeed ay ku midaysan yihiin kaas oo ay kaga hadleen arrimaha doorashada 2019 iyo dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka murashaxiintan oo toddoba gaaraya waxa ay kala ahaayeen Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale Injineer Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac Janagale General Khaliif Ciise Mudan Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye Injineer Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shoortaaye Saciid Cabdullaahi Dani iyo General Saciid Maxamed Xise Saciid Deere war-saxaafadeedkan oo warbaahinta u akhriyeen afayeenka murashaxiinta Puntland Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale iyo gudoomiyaha golahan Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac Janagale waxaa dhaliil loogu soo jeediyay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed kaas oo ay tilmaameen inuu faragelin ku hayo xildhibaanada beelo ay soo xulanayaan sidoo kalena uu doonayo in uu si madax bannaan u soo magacaabo guddiga xalinta khilaafaadka arrinkaas oo ay gaashaanka u daruureen waxa aanu kulamo gaar ah ka yeelanay xaaladda Puntland doorashada 2019 iyo dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka markaan aragnay warqadda ka soo baxday madaxweynaha xilku ka dhammaanayo ee ku saabsan soo xulidda xildhibaanada golaha wakiilada waxa ay nala noqotay inaanu soo saaro wararkan hoos ku qoran guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada waxaa maragma doonta ah in soo xulidda xildhibaanada beelaha sanadkan la gashay khilaaf aan weligii ka dhicin Puntland taasoo si ku talagal ah oo madaxweynaha talada haya oo u maleegayo waana wax aan taariikhda Puntland horay u soo marin wuxuuna si ku talagal ah musharax madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas u dejiyay in ay xubno badan oo wata liisas iskhilaafsan iyo saxiixiyo ismo iyo nabadoono kala duwan ka yimaadaan beelo kala duwan si uu madaxweynuhu ugala dhex baxo kuwa isagu uu rabo waxaana u meel marinaya guddi keligiis uu soo xulanayo kuna magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada waxaa wax aad looga xumaado ah oo aan sina loo aqbali karin in qabiil kala sooc ba'an uu madaxweynuhu kula dhex jiro beelaha xildhibaanada iska soo xulaya qaarka uu u arko in uu qabiil ahaan uga xoog leeyahay oo uu xubnahooda cidduu rabo ku qorto si cadna isaga indhatiro saxiixiyada nabadoonnada iyo isimada beelahaas waxaa kale oo jirta in qabiilada uu madaxweynuhu u arko in aysan xoog badan lahayn ama isimadoodu meelo fog jiraan oo aan garoowe imaan karinin uu si toosa qofkuu rabo u marsaday guddiga khilaafaadka haddaba waa in la helaa si arrintaas loo xalliyo waa in la helaa guddi dhexdhexaad ah oo ay isku waafaqsan yihiin dhammaan musharaxiinta oo uu ku jiro madaxweynaha oo isna musharaxnimo ku dhawaaqay haddii guddigaasi ama fatiga committeega la yidhaahdo uusan ahayn mid dhexdhexaad ah ama tayo fiican leh ama aqoon iyo waayo aragnimo weyn uusan u lahayn xaaladda dhaqan iyo midda siyaasadeed ee Puntland waxaa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda madax bannaanida iyo kalsoonida guddiga lagu qabo oo la waayo mar haddii aan laga talagelin musharaxiinta oo uu ku tagrifalo soo magacaabidooda madaxweynaha xilkiisu sii dhammaaday oo keliya laakiin waxaan runtii soconay annaguna aanan maanta diyaar u ahayn in aanu ku galno doorasho ku galno procedure ama system aan sax ahayn inaan ku galno maxaa yeelay waxaan ognahay waxa ka iman kara baan ognahay in arrinta ay ciidamada talada maroosato madaxweynaha xilku ka dhamaanayana maadaama uu murashax yahay wax privilege ama gaar ah oo uu leeyahay arrinta tan ma jirto waa murashax nala siman Cabdiweli oo Janis
ku cayaaro games fara badan laakiin now we are very serious hadda markaan ka warwarin hadda wixii ka dambeeya waa lala xisaabtamayaa wixii aan sharciga waafaqsanna waa laga soo jeensanayaa farahana la isu fiiqi maayo waxaa weeye waxaan leenahay dastuurka lagu dhaqmayaa wixii ka bata dastuurka wuxuu nafanayaa in marjac uu noqdo odayaasha isimada faragelin doorashadani uma baahna puntland iyadaa isugu filan iyadaana soo dooranaysa cidda xukumaysa 5 sano oo soo socota iyo cidda u masalaysa meel walbo kale ama federaal ha noqoto ama wajiga caalamigaaba ha noqoto taasi taa weeye waana midda reer puntland oo dhan ay rabaan xaqiiqi cidna faragelin kama rabaan reer puntland raalli kama hayna faragelin finally waxaan maqlayay dad leh federaalka lama hadli kartaan horta federaalku dawlad anti nagu ah oo naga soo horjeeda maaha Soomaaliya ka madaxeedii weeye qayb baanu ka nahay qayb bay naga yihiin laakiin puntland xor bay u tahay say rabto inay isu doorato iyadoo aan cidina soo faragelin laakiin xuuxinta federaalka la isku xuuxinayo sidii hadda ka hor way dawladaha shisheeye la isku xuuxin jiray arrinkaas sax maaha hal la joojiyo in aan sharax abdul xana calikaas uusan xoolaha hantida guud ee ummadda uusan doorashada u isticmaali karin si toosan iyo si dadban waxaana wasaaradda maaliyadda puntland iyo dhammaan ciddii ay husayso u sheegaynaa in musharax abdul maxamed calikaas uusan wax maaliyad ah saxiixi karin isaga iyo ciddii arrintaas khilaaftana uu sharcigu qaban doono in musharax abdulweli maxamed calikaas laga bilaabo maalintii cilaamiyey sharaxnimadiisa uusan xil magacaabi karin ama xil ka qaadi karin qof